assalaamu calaykum. maxaad ka taqaanaa dalka weli dadka madow loogu yeero addoon? waxaan fideogan ku eegi doonnaa midabta koorka ay la kulmaan dadka madow, gaar ahaan kuwa dalkaasi ku nool, iyada oo weli dunida ay ka socdaan dibadbaxyo kala duwan oo looga soo horjeedo midabta koorka. hase yeeshee dalkan oo ka mida dalalka dunida, gaar ahaan kuwa qaaradda afrika, waxaay u muuqataa in uu yahay dal ku yaala duli kale. haddaba daawada, haddii aad lagu cusub tahay, fadlan rukumo oo sabskaraab saaro janalkan si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena daalacda. iyada oo dunidu ay ka socdaan dibadbaxyo kala duwan oo looga soo horjeedo midabta koorka kadib dilkii georgia florid, hase yeeshee suudaan waxay u muuqataa inay ku taallo duli kale. hastaaggii baraha bulshada qabsaday ee Black Lives Matter, suudaan aad loogama hadal hayn. beddelkii taasina waxay ku mashquulsanaayeen arrin barahooda bulshada qabsatay oo ku saabsaneed midabta koorka lagula kacay ciyaaryahan caan ah oo kubadda cagta dheela oo lagu magacaabo isaam cabdiraxiim oo ah madow. isaam ayaa waxa uu guursaday gabadh carab ah, waxaana baraha bulshada lagu baahiyey qoraal sida tan u dhignaa: xaqiiqatan waa xaaraam in boqor uu guursado addoon. nin ka mida dadka isticmaala facebooka ayaa sidaasi qoray kadib markii uu arkay sawirka lamaanahan. tobanaan falcelilo oo la mida kuwaasi ayaa qabsaday barta facebooka oo ay bulshadu ku wada xiriirto. layaab ma lahan, sababtoo ah dadka reer suudaan waxay u arkaan inay carab yihiin. beddelkii afrikaannimada, ereyga addoon waxaa lagu qeexaa dadka madow marka dalka suudaan aynu ka hadleyno. suudaan waxaa u badan dadka midabka furan oo ku hadla luqadda carabiga ah, halka dadka madow ee afrikaanka ah ee deggan koonfurta iyo galbeedka dalka ay la kulmaan midabta koor iyo faquuq aan baaxaddiisa marnaba la qiyaasi karin. waxaa caan ka ah dalkaasi wargeysyada lagu daabaco ereyada midabta koorka xambaarsan oo uu ka mid yahay ereyga addoon. qarnigii 19aad marka aynu dib u milicsano, dalka suudaan waxay ka mid ahayd goobihii aadka ugu darnaa oo ay ka jirtay ganacsiga addoommada. dhacdo kale oo ka dhacday dhowaan ayaa iyadana ku salaysanayd midabta koor oo madaxa ururka u dooda xuquuqda dumarka ayaa ka falcelisay sawir muujinaya nin madow ah iyo xaaskiisa oo reer yurub ah. waxa ay tiri, labadan qof waxa ay kala yihiin sida farqiga u dhexeeya bini'aadam iyo daanyeer. suudaan midabta koorka waxa uu ka yahay caan xilliyadii gumaysiga iyo sidoo kale tan iyo markii ay xornimada qaadatayba. xitaa dowladda gudaheeda waxaa ka jira midabta koor ba'an oo jagooyinka sarsare waxaa ka buuxa carabta waqooyiga dalka degta iyo sidoo kale qowmiyadda nuubiyaanka. dhammaan saraakiisha sarsare ee milatariga waxaa haysta qowmiyadahaasi, sidoo kale waxay awood ku leeyihiin waaxda ganacsiga. aynu dib u milicsano ka ganacsigii addoonsiga ee suudaan. midabta koorka suudaan waxa uu la bilowday aas-aaskii khartuum ee 1821kii, xilligaasi oo ay magaaladu ahayd suuqa kala iibsiga addoommada. ilaa haatan ganacsadayaashii addoommada weli waxaa laga ixtiraamaa suudaan, oo waxaa jirta waddo ku taalla bartamaha magaalada oo loogu magacdaray
al-zubeer bashar raxma oo qarnigii 19aad caan ku ahaa ganacsiga addoommada. ganacsiga addoommada waxaa meesha laga saaray 1924kii, balse go'aankaasi waxaa ka soo horjeestay hogaamiyaashii carabta ee xilligaasi. waxaa ka mid ahaa cabdulraxmaan al-mahdi oo ay dad badani aaminsan yihiin in ay addoommo badani ugu shaqaynayaan dhulkii ay ku lahaayeen agagaarka webiga liil. laba cilmi baarayaal oo reer suudaan oo lagu kala magacaabo suleymaan beldo iyo sidoo kale oshaara mahamuud ayaa 1987kii shaaca ka qaaday caddeemo muujinaya in qaar ka mida kooxda waqooyiga suudaan oo addoonsanaya dadka madow ee koonfurta. waxay sheegeen in kooxdaasi ay hubeysnaayeen taliyo xornimadii suudaan. waxaa dalkaasi hareeya dagaallo ay horseedeen aragtiyada xubno ka tirsan carabta suudaan oo isku arkaya inay ka wanaagsan yihiin dadka madow. haweenkii iyo carruurtii ay afduubteen kooxihii carabta si ay ugu shaqaystaan ayaana weli xornimadoodii helin oo aan dib u arkin qoysaskoodii. dhanka kale, taliya markii uu bilowday dagaalkii daarfuur horaantii sannadii 2000, maleeshiyadii carabta ee taabacsanaa dowladda ayaa lagu soo eedeeyey in ay dil iyo kufsiba u geysteen dadka madow. isbeddelka sanadkii tegay ee 2019 ayaa waxaa lagu soo dhisay dowlad kumeel gaar ah kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii cumar xasan al-bashiir. hase yeeshee ilaa iyo haatan ma cadda hab wax looga qabanayo midabta koorka ka jira dalka suudaan.